وحو حينايو وركو بد نغا باسي ما الوال وهياد نغا باسي باسك عيار وكان نغا دلي لا اله الا الله بالله وحو حينايو لا اله الا الله محمد رسول الله اله انترنيرك نغا بدل جواركن ورما كبدو عيار يا مس فولي بول باسك بخي والله ما تهدا نغا بديو المهن halkee laga keenay wax muxuu ciyaaraya waxaase kuwa dharka casi waay xabiibi bal eeg wuxuu khasaarinayo dharka iska laalaab xabiibi fahmaysid waxana sidee u fahmeen abeestan u xarifad baaha foob maxay yasiiri wadahan halkee laga keenay goolka macasaan kaale mise cadaanka ruudaale qalbi ma fahmaysid dharka naga laalaab eeg filin ku keenay waa kiligii sidee waraga soo dhan iskaga celin kee ka hadlaysa adigu de odaga yara garanku ruudale isaga goolka dhaliya tirima ma wasiiri wadahi war waxaan uma fahmay igala dul tag ma ana kuleeyim dimise horta odagtay ma walaalka intuu imanay ma war laa ku bedel laag muxuu naga soo doonaya xariif oo walaalka samaha aqalkiisa ilaahu maanta ma lugta la hayaa raga aqalkiisu kaartay sadbu ku yaala sheegi kani is my home of me wanarkana ku soo goal yes waxa ciyaaro gool ma aha orada dalka fur sida ay ku ciyaara السلام عليكم بسم الله عيار هضبه ايوه ها حبيبي وانا كنت دافد غوري ماني العياريان بل انك انا سو ايج وما حد كديدكني دفاع نقعدكي نكون السلام عليكم بسنكا ايوه ها ما قدافد باي نوت على محرونا كاغا سو نوقونيا وربالجوك بالإمكان أفريه يجمون هيك فران والالكاي بسنكا والالكا مالبك لغا حدا الله ما دوكو موضي نيكي غير قدافكا قدافدا نا ايدابت ما برت ديالكاغا يرير واو ما maxay buu qanita like ma chan dhigida uma kari laayahay war hus hooyada sida hawle halin wasakh baatay meehuna iijoog walaal eedabta hadad bir weedi ana ku tarbiyaday ilaahu wax kasta la arki gaari gudaaf kibrina waa kan hooyada sida la hadla sawra hadeen gudaafada kugu ridi waayo war wadagaygi isma walaalkay walaal maxaya maduwa oday maxaya gaabana ورجوك برتا كدقاقين واقص الشيء واسكا سعنس نحشوني سيد مركا كوباد horta waxa rajaynaya in xalqada maanta aad ka hesheen ood ku mabsuudeen ood ku jibooteen ood ku khalkhasheen ood ku dawaqdeen ood ku mirqaanteen ay bas danaga aamus ayoon ilmu walana haddaba muhiimadu inta qosolun lagu joojiyo ma aha walaalayaal waa inaan isbaraarujino oon cilmi iswadaag waa sidaa darteed waxaynu musalsalkan ugu tala galnay in aynu ka difaacno hablaheena falalka foosha xun loo geysanayo ma ogtihiin in wadankeenu iyo hay'adihii qaramada midoobay ay galeen talaabooyin ay kula dagaalamayaan caadaadka xun ee ku saabsan guditaanka hablaha caadaadka oo keeni kara xanuuno iyo natiijado xun oo saameyn ku yeelan kara noloshooda iyo caafimaadkooda inkastoo aan natiijado fiican ka gaarnay la dagaalanka arrinka khatarta leh weli caadaadka xun kamaynu bixin waxay taasi cadaynaysaa in loo baahan yahay intuu qof waliba bulshada kamida uu mas'uuliyad isi saaro dadaalkan kaga qayb qaadanayo annaguna haddaanu nahay lintii baaraha bulshada waajibkeena waxa uu yahay in aan farta ku fiiqno wax kasta oo saameyn xun u keeni kara bulshadeena haddaba walaalayaal aynu isku duubnaano oo ilaashano hablaheena